kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club ayaa heshiis ku abaalmarisay ciyaaryahankeeda weerarka ugu ciyaara ee lagu magacaabo Santos, kaasoo ka mid ah ciyaartoyda halbowlaha u ah kooxda MCC ama Muqdisho City Club. Xidigan ayaana heshiis qalinka ugu duuga oo gaarsiisan ilaa 2 sano, kaasoo naga kusii ahaan doona kooxda MCC Brand Sports Club, isagoona heshiiskaani ay ku abaalmariyeen maamulka sare kooxda Muqdisho City Club ay farxad gelisay dhammaan taageerayaasha taageera kooxda Muqdisho City Club. waxaana heshiiskan oo noqon doona inuu nagi kusii ahaado inkastoo ciyaaryahankan ay baadigoob ugu jireen kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Soomaaliya Premier League, laakiinse heshiiska markuu ku dhigay taasi waxay keentay inay ka niyad jabaan helitaanka ciyaaryahan Xasan Santos ayaana markaana qalinka ugu duugay kooxda Muqdisho City Club 2 sano oo heshiis ah, isagoona qandaraaskiisa ku ekaa xilli ciyaareedka soo aadan, balse 2 sano ayuu qalinka ugu duugay kooxda Muqdisho City Club. waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee kooxda MCC u ciyaarta. ciyaaryahankan ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxda Dekedaha oo 3 sano lasoo dhaaf ku guuleysanaysa horyaalka Soomaaliya Premier League, laakiin MCC ayuu kusoo biiray isagoona iminka ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican. sidoo kalena MCC waxay u soo baxday wareegga xiga ee tartanka koobka General Daud, iyadoo maalinta Arbacadana la ciyaari doonto naadiga lagu magacaabo Saxafi kulan ka tirsan wareegga tartanka ee General Daud. Santos ayaana dareenkiisa ka hadlay kadib markuu heshiiska u siiyay kooxda MCC, isagoo yiri waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda faca weyn ee Muqdisho City Club inaan heshiis qalinka ugu duugo. waa mid ka mid ah kooxo aan ku riyo jiray inaan u ciyaaro, taasina waa ii noqotay inaan mar-uun u ciyaaro kooxda. waxaa si lamid ah aan aad ugu faraxsanahay inaan 2 sano oo nagi kusii ahaan doono kooxda MCC. waxaan rajeynayaa inaan kula guuleysto koobka horyaalka Soomaaliya Premier League iyo koobka iminka soconaya General Daud, ayuu hadalkiisa ku soo koobay ciyaaryahan Xasan Santos oo ah ciyaartoyda ugu fiican kooxda MCC.